يا عدوغا نبديدكا يا الشباب waxay isku dayeen inay hoobiyaal ku soo tuuraan caasimadda galmudug ee madaxda dhuusamareeb xalay abaara 6 saac saacadu markay ahayd ay arintaas isku dayeen qorshe military oo aan ku qaadnay cadawga nabadiidka ee al-shabaab waxaan u galnay jidgooyooyin nimankii arxanlaawayaasha ahaa ee ugu talagalay maatada iyo caruurta inay ka qaxiyaan ama naxdin galiyaan oo khalkhalkaasi ay ku cabsiyaan waxaan qorshihii aan u degnay waxaan u dhignay ilaa 3 jidgooyo waxay ku dhaceen jidgooyadii u horeysay cadawga jidgooyadii u horeysay markii aan ku dhignay waxa ka dhimatay ilaa 3 uu ka mid yahay amiirkii watay lagu magacaabo Cabdinaasir amiirkaasi waa ninka u diiday deegaanada ka soo bilaabata ceelbuur ilaa dhuusamareeb inta ka dhaxaysa amiirka haystu ahaa oo cayayaanka ku abuuray wadankaasi kana shaqeeyay in bulshada ku dhaqan deegaanada ceelbuur iyo deegaanada hoos yimaada ilaa dhuusamareeb inta u dhaxaysa inaysan ku harsan ama aysan ku hooyeen hooyooyinku iyo caruurtu muddo badan aan ku daba joognay oo aan raadinaynay in badan ayuu wuxuu isku dayay inuu caasimadda khalkhal galiyo nasiib wanaag ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 15aad ee qaybta 12aad xalay hawlgalkaasi waxaan ku guuleysanay amiirkii iyo 3 askari oo kale inaan kabti ay ku baqtiyaan ilaa 2 askari oo kalena ay nolosha ku qabanno oo ay kamid yihiin ay u jeedaan askarta hortiina taagan oo dhaawac ah oo kabti ku dhaawacantay hubkaan arkaysaan iyo hub ka sii badan aan meeshii goobtii ku qabanay rasaastii ay ka carareen iyo qasnadihii iyo aaladii ay wateen waxa ku dhacay khalkhal aad u weyn kala raba halkan uga mahad celiyo ciidamadii geesiyaalka ahaa oo Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 12aad qaybta guutada 15aad oo xalay maaragtay waajibaadkii ku aadanay si ay u difaacaan dalkooda dadkooda khawaarijtii maaragtay dhibaateeyay hubkii ka furtay qalabkii ay sideen meedkoodiina aad arkaysaan hogaamintoodii saraakiishoodii oo taliyaha halkan jooga iyo taliyaalka kale oo halkan taagan waa u mahad celinayaa dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in la amaal mariyo saraakiishii iyo ciidankii xalay maaragtay cadawga dhibaateeyay in si fagaara loo amaal mariyo qofka hadii waajibaadka iyo waxa uu dalka u qabtay aan lagu amaal marin qofna ma dhiiranaay dawladda Soomaaliyeed iyo maaragtay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed madaxda waxaan ka codsanayaa in ciidankii hawlgalka xalaf fuliyay la amaal mariyo Soomaalidana waxaan u sheegayaa in dawlad goboleedka Galmudug